وهجاج وحان مركاسي جوردو عن جلي دونا ورك لدونا وكوساب سن وضن كمريكان كورنا مان هوليه استاجين كدي مركي لوجه الشين وهي مالمرينتا ميسانية ده بلصها تن سوماليلان madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo maanta magaalada Hargeysa ku qabtay shir jaraa'id oo ah kii ugu horeeyay tan iyo intuu xilka qabtay ayaa waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay wadahadaladii iyaga iyo Soomaaliya waxa kale oo BBC uga warramay colaadda ka oogan deegaanka Tukarraq ee gobolka Sool oo ay isku hor fadhiyaan ciidamo ka kala socda Somaliland iyo Puntland madaxweyne Muuse Biixi waxa kale oo ka hadlay abaara uu sheegay inay ka jiraan deegaanada Somaliland haddaba shirkaasi jaraa'id kadib ayaa madaxweyne Muuse Biixi waxa uu ra'iis siiyay wariyaha BBC-da waxaana markaasi warbixintan uu naga soo diray Axmed Saciid Cige magaalada Hargeysa xiisadan halkan imika ka oogan annagu waxaanu ka qabnaa nabad waxaanu leenahay waxaanu dhaqaajinay ciidankayaga wuxuu u kala guuray laba deegaan oo isku mid ah duulimaad kuma nahan cidna dagaal uma taagayno ma rabno Soomaaliya iyo Somaliland wuxuuda waxaan jecelahay wada hadal iyo nabadgelyo inaan ku dhameysano waanu ismaan dhaafsanahay Soomaaliya iyagu waxay maskaxdooda u sawiraysaa inay xukumaan Somaliland oo qayb ka mid tahay taana sharciyan iyo aqliyan iyo haddii la yiraahdo maanta sida xaalku yahay way og yihiin in Somaliland bari hore ka tirtay qaran leysatay oo qaran jiro xadkeeda ilaashanaya tahay sharci ahaana annagu waxaan xadkeeyga yahay kii isticmaalku dhigay qarniyaal ka hor oo afkoorn ku dhaqan tahay waxaanu leenahay walaalahayo colaadda iyo durbaanka waliba qabalay ku fadhiyaa danay nooma aha aynu kala nabad galno marka madaxweynayaashii ka horeeyay Somaliland iyo madaxweynayaashii hore ee Puntland marka ay xaaladdu halkan gaadho in badan bay Puntland iyo Somaliland isku dhacday ilaa la saacanood oo aaga Sool qaybo kamid ah isnaag bariba laakiin telefoonka qaadan jiray oo hadli jireen ma wada hadasheen adiga madaxweyne Cabdiwali horta Cabdiwali waa gobol Soomaaliya kamid ah anigu de gobol faragelin baan u arkaa inaan la hadlo Cabdiwali ma Cabdiwali ma la hadlo anagu waxaan u hadlaynaa madaxweynaha federaalka Soomaaliya oo Soomaalida aan isku haysano war laba jamhuuriyadooda walaalo seen beenahay isaguna meelo gobol iga mid ah isaga wada hadal naga dhaxeeya isaga inaan wada hadalno oo nimi soo farsana anaaba caalamkii cidba weydiinaya way saasaano dana wixii taa dhaafsan waa khasaare labada dhinacba dad noo kala telefoonka noo kala qaadina wajir noo kala war qaaday wuxuu hadalkay ku dhamaaday oo ay kamid yihiin hay'ada iyo dawladda iyo qoladan international community labadaba wax laga haya oo anigu hadda aan leeyahay waxaan jecelahay inaanu arinta Soomaaliya Somaliland waa hadal ku dhamayno isnimaadno madaxweyne Farmaajo oo aanu ka hadalno war maxaynu ku kala baxnaa annaguna qaran baanu nahay meel Somaliland leeyahay Soomaaliya halka inuu ka duulo isagu wuxuu oranay dacwadiisa taal hadda laakiin ogow ciidamada Puntland iyo ciidamada Soomaaliya waxay soo fadhiyo khatar ay tahay oo waqti kastaba ay dhici karto in dagaal dhaco dad badan loo baahan inay ku dhintaan xadkii Somaliland iyo Soomaaliya waxaan u jiraa 70 kilomitir halkaana ma dhaafayno kumana soconno inaan dagaal maanta galno mid kale aan ku sheegaya xadka Somaliland iyo Soomaaliya dhaxay isbarsaacad sameeyay gaar 2 kilomitir u jira mas'uuliyadda iyo dadnimada iyo walaalatinimada nama siinaysa inaan dagaal u jirsiino garowwe colaad 7 kilomitir ma qabataa martay ciidankaygu hadda iyagu 70 kilomitir lagu soo duulaan deewana way saafacayna waxaad kale ka hadashay shirkaaga jaraa'id wada hadalladii Soomaaliya iyo Somaliland in kastoo bilyan maalmaad ay si xuquuq qiimka bal ka war wada hadalladaasi diyaar baan u nahay oo hadlo dawladda jaarka waa u sheegay qolada United Nations ka wixii aan qarag waa u sheegay waxay Somaliland diyaar u tahay inay nabad iyada iyo Soomaaliya wada hadlaan oo waxay dhexdooda ay nabadgelyo ku dhameystaan hadal waana qabaa Soomaali markay isu timaado inay shiriso ugu dambeyntii madaxweyne Muuse Biixi adigoo mahadsan fursaddan siisay BBC-da abaaraha soo qaaday abaaraha ka jira oo awda loo kale iyo beela kaleba oo loo ugu darantay waanad ku soo qaaday shirkaaga jaraa'id sanadahan ba abaaruhu waa badan de ilaahu ma naga qaadi karaa cimiladina way xumaatay haddana abaartu waxay ka bilaabtay gobolada galbeedka daaqi waa dhamaaday xoole waa dhimanaya de ilaahayna waa baryeena gurmudna dhexdeena waa gelina aad baad mahadsantahay